xubinteena ciyaaraha waxaan ku soo qaadanaynaa kooxda Borussia Dortmund oo gelgishay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ka gadal markii kooxda Palu ay kala wareegtay laacibkooda lagu magacaabo Christian Pulisic oo si degdeg ah kooxda Borussia Dortmund waxay ugu falcelisay in ay la soo wareegto labada laacib ee kala ah Torgan Hazard oo ah laacibka ka yar Eden Hazard iyo waliba laacibka kale ee lagu magacaabo Bernard kaasi oo ka xamaalin jiray horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka hadalhaynta xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo xanta taaganna waxa qayb ka ah goolhayaha kooxda Manchester United ee David De Gea ayaa diiday dalabkii ugu dambeeyay ee kooxda Manchester United ay ku doonaysay in heshiis cusub ay kaga saxiixato sidii uu ku sii joogi lahaa qalcadda Old Trafford taasi oo la micno ah diididiisa in United ay ku qasbi doonto in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga iibiso kooxda PSG oo loo xaqlinayo in uu aadi karo kooxda Chelsea ayaa iyadana waxa ay dalban doontaa aduun lacageed gaaraya 5 milyan oo euro koox waliba oo doonaysa in ay la wareegto macallinkooda Mauricio Sarri kaasi oo u muuqda mid mashaqo xooggan ay ku heshay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ciyaartiisa ugu dambeysana waxa uu la ciyaari doonaa kooxda Arsenal finaalka Europa League sidoo kale kooxda Chelsea waxa ay aqbashay ganaaxa laga saaray suuqa xagaygan iyagoo ku rajo weyn in laga cafiyo ganaaxa xaqa suuqa bisha January bilowga sanadka 2020 dhanka kale kooxda Manchester United ayaa waxa ay doonaysaa in ay dhameystirto saxiixa xidiga garabka ugu ciyaara kooxda Swansea City ee lagu magacaabo Daniel James toddobaadkan qorshaha Manchester United ayaana noqonaya sidii dib u habayn ugu samay lahayd kooxda dayaca badan uu ka muuqday xilli ciyaareedkan oo noqotay mid mashaqo xooggan ay soo wajahday ka gadal markii kooxaha Tottenham iyo Liverpool ay ku wada dagaalamayaan finaalka Champions League halka sidoo kale ay isku haystaan xagga Europa League kooxaha Chelsea iyo sidoo kale Arsenal horyaalka Premier League waa kooxda Manchester City oo United ayaa dayac soo istaagtay taasi oo la micno ah in kooxda United ay u baahan tahay dib u qalabayn aad u xoogan Sadio Mane ayaa sidoo kale isna waxa qayb ka noqday bartilmaameedka suuqa xagayga kan ay doonayso kooxda Real Madrid oo iyadana u baahan in ay samayso dib u dayactir aad u weyn dhinaca kale waxa hadalhaynta ciyaaraha caawa qayb ka noqonaya kooxda Manchester United ayaa iyadana waxa ay ka shaqeynaysaa sidii ay kula soo wareegi lahayd laacibka qadka dhexe ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic kaasi oo lagu heli karo aduun lacageed gaaraya 55 milyan kooxda Newcastle ayaa dhankeeda iyadana waxay xiise u qabtaa sidii ay ku soo xirigelin lahayd laacibka kooxda Manchester United Juan Manuel Mata iyagoona doonaya in ay ku sii hayaan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska inkastoo isagu macquul ay tahay inuu ka mid noqdo kooxda lagu magacaabo Barcelona oo doonaysa in si xur ah ay ku hesho Manuel Mata kooxda Arsenal ayaa iyadana dhankeeda waxa ay aad u xiiseynaysaa sidii ay ku soo xirigelin lahayd goolhayaha kooxda Valencia ee lagu magacaabo Neto si ay bedel ugu dhigtaan goolhaye Peter Cech kaasi oo isaga fariisan doona ciyaaraha kubadda cagta marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan oo Peter Cech ayaa waxa loo xaglinayaa in uu noqon doono tababaraha xagga goolhayayaasha ee kooxda Chelsea ama kooxdiisii hore wararka kale ee caawa jirana waxa qayb ka ah kooxda Inter Milan ayaa waxa ay doonaysaa iyadana saxiixa xidiga difaaca ugu ciyaara kooxda Bayern Munich ee Jeremy Boateng halka kooxda Lyon iyadana ay xaqiijisay in xidigooda qadka dhexe ee lagu magacaabo Tongai Ndombele oo horey loo xiriirinayay kooxda Manchester United in waqti xaadirka kan ay wada xaajoodiyo ay kala socdaan kooxda PSG Malcolm ayaa isna wuxuu ku biiri doonaa kooxaha Tottenham, Borussia Dortmund, AC Milan ama Inter Milan midkood suuqa xagaygan waxaana macquul ah in mar kale suuqa ay ku celiso kooxda Blaugrana ee ka dhisan gobolka Catalonia kooxda Napoli ayaa dhankeeda iyadana waxa ay ka soo diiday kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Manchester United aduun lacageed gaaraya 92 milyan oo